السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال soo dhawaada dhamaantiin waxaan soo gudbinaynaa waxaan soo gudbinaynaa falanqayntii toddobaadka insha Allah iyo fursadaha toddobaadkan hor yaallo sida aan uga faa'iideysan lahayn ogow midweek waa soo gali doonaa haddii zoom ahaan lahayd amaba haddii aan soo duubi lahayn intaba sababtoo ah waxaan fiirin doonaa qaabka suuqa uu ku furmo iyo waxa isbedel ah ee yimaado hadduu ilaa yiraahdo marka ramadaankii maadaama uu dhamaaday energy badana maxay ahayd nagu soo siyaadi doono casharadana duubitaankeeda way sii socon doonaan waxyaabo badanna waan bedeli doonaa marka hadda maadaama aan dayliga joogno DXY ga waxaan ka filaynaa in waxa haysan waa impulsive mar waliba intaan waan sharaxnaa oo wuxuu ku jiraa hadda waa sideways ama waa correction ama waa range in general waxa uu ku dhex jiro DXY ga balse waxaan ka fiirinaynaa waa in la push gareeyo oo at least noo soo taabto 1 2 3 inta aanan helin push up kan oo ilaa iyo halkan xataa impulsive kan waan ka faa'iideysan doonaa waana arkaynaa qaabka uu sii dhaqmo euro USD ayaan ayadana sii fiirinaynaa balse aan sii kormarno euro USD trade idea waxaan soo dirnay arbacadii mise talaadii arbacadii aan soo dirnay waana meesha aan high probability area aan uga sugaynay inaan helno expanding keena 1 2 3 meeshan in maxay ahayd rail lane keena possibility-ga mar waliba waxaan ku dabaqaynaa istaraatiijiyadeena ah trade lane-ka si rail lane-ka meesha qaabka loo tago halkan oo haddii aan ascending ahaan u tagno corrective ahaanta iyo impulsive ahaanta meeshan waa meesha one hour retrace candle-ka ka qaadan karto haddii aad hesho sida in uu jabiyo kale kadibna retrace lagu soo sameeyo falaagaas ayaan qaadanaa naga qaab noocaas oo kale taa markii aad u aragto haddii aad hesho three kan ascending-ka one hour haddii aan tagnana kaba si fiican oo markaas confirmation waxaad haysataa risk entry aad halkaas ugu qaadan karto haddii kalena reduce risk entry aad qaadan kartaa ama markii aad aragto impulsive kan in uu 1 hour ka xirmo kaleeto midkan kaleeto asagana waa ka geli kartaa oo meeshan stop loss qaada halkaas waa dhigan kartaa qaab kasto wuxuu kugu siinayaa suuqa entry halkan waa entry waxa hadda uu diyaarinayo suuqa ayadana waa entry waxaan rabnaa in aan haddii aan helno qaab noocan oo kaleeta in aan halkan ka qaadano entry-geena stop loss kaaga meesha dhigan lahayd adiga waaye balse halkan flagan ayaan fiirin doonaa stop meeshan aan ilaa iyo at least in aan la socono ilaa at least meesha uu impulsive kan ka kacay halkan sida uu suuqa uu uga reversal gareeyay inaan fiirino trade management-ga waa taqaanaa qaabka maareyn lahayd at least in aan la socono double bottom keena iyo qaabka markaas anagoo isha ku hayno qaabka oo markaas suuqa uu kala wareegi karo balse ilaa iyo halkan waa meesha aan isha ku hayno in aan la socono oo aan at least dhamaystirno double bottom kan oo kaleeto meeshan section 1 ayaan u xisaabinaynaa 2 3 in aan helno halkaas iyo meeshan ay tahay double bottom inta aanan buygaas helin karo marka meeshan haddii aan flagaas helno ayadana maxay ahayd waa ka seel garay doonaa oo qaabkaas ayaan isha ugu haynaynaa euro USD waxaan tegaynaa USD da ayaan isla kormari doonaa USD CAT ayaan sii fiirinaynaa iyadana USD CAT daily-ga haddii aan tagno ama weekly-ga okay weekly-ga waxaan arkaynaa in aan helnay retrace candle inaan helnay hadeertaan in aan ku jirno sideways at least in aan ku laabano halkan si aan markaas uga helno in uu structure-keena is dhamaystiro qaab noocan oo kaleeta daily-ga haddii aan tagno meeshan mar waliba inaa update garayso toddobaadkii hore iyo hadda sidii kugu taalo marka haddii aan isla fiirino bal qaabka aad u fiirinayso mar qof waliba iyo qaabkay ugu sawiran tahay oo kale haddii aan qiyaaso bal aniga hadda sidaan oo ii tahay meesha aan ka sugayay in aan ka qaato risk entry-geedo kaleeto halkan at least in aan helo in halkan flag uu ku samaysto qaab noocan oo kaleeta haddii aan helo sida euro USD ay ku samaysay oo kale haddii la jabiyo in aan retrace candle ka sugno kadibna flag in aan qaadano balse impulsive haddii uu baxo markaas suuq intay wax iska bedelayaan oo arag direction-ka markaas suuqa uu ku socdo laakiin halkan risk entry-ga ha ka qaadanin impulsive ahaan haddii loo tago halkan risk entry-ga ha ka qaadanin oo waxaa kugu dhacayso wixii kugu dhacay euro USD oo kaleeto violate trade-ka adiga horta inaa ismiisaanto waa muhiim mar waliba oo aad suuqa aad trade-ka qaadanayso meeqa trade oo waxaad qaadataa probability-ga meeqa trade ayaad ka qaadataa ama violate trade-ka meeqa ayaad ka qaadataa focuskaaga waxaa laga yaabaa in uu yahay boqolkiiba boqol in aad maxay ahayd focuskaaga in aad saarto
lacagaha high probability sameynayo balse marka aad go'aanka gaarayso inaad qaadanayso value trade inaad qaadanayso value trade kana waxa waaye aad uu macnaha u dhib badan yahay marka meelahan oo kaleeto aad joogto middle-ka waxaa laga yaabaa lacag oo meel aanan jihal lacag aanan lahayn inaad dalaq dhahdo confirmation markaas raqiis ah in aad markaas aad ku dabaqdo sida halkan oo kaleeto meeshaan ascending-ka markaan ku sugnayn waxa aan filaynaya waxay ahayd for example waa muhiim in cashirna uu kuu noqdo falanqaynna ay kuu noqoto marka journalkan aan ku jirna ascending-ka qaab noocan oo kaleeta waxaan filaynay at least in sidaan oo kaleeto uu noqdo halkan in la dhammaystiro meeshaan inay noqoto 1 2 3 inta aanan soo seel garaynin kahor balse price-ka mar waliba waxa uu samaynayo adiga waa inaad ku tixgeliso waana in aad suuqa message ka qaadato adiga waxaad leedahay focus aad leedahay waxyaabaad maxay aad analyze garaysanaysaa balse message-ka suuqa uu ku siinayo waa muhiim inaad qaadato suuqa waxa uu sameeyaa waxay tahay waxaa idin journalkan haddii uu ka dhex baxo gebi ahaanba oo meeshaan correction ku samaysto correction ka qaata qaabka trade line-ka markuu correction ku samaysanayo kor iyo hoos intaba waa wada taqaanaa dhammaantiin balse muhiimadda waxay tahay meesha aad trade-ka ka qaadanaysid in uu noqdo in aad message suuqa ka qaadato qaab noocee u qaadan doonaa haddeertaan iyo waxa waa value trade-ka cashir waa ka samaynaya insha allah waadna wada sugaysaan waa ogahay balse halkaan oo kaleeto waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto meeshaan oo kale halkaan meesha aad ku sugan tahay waa inaad og tahay angalkana in badan aan kasoo hadalnay ayadana iyo lacagaha qaabka ay angalku samaystaan meeshaan markaad dhahda ka waran lacagtii waa seel garaynaya impulsive way halkaan correction ku samaysatay meeshaana ka seel garaynaya risk entry-ga halkaan ka qaadanaya tana waxay noqonaysaa marka lacagaha markaas inaad value trade-ka iyo inaad kala saarto oo aad jihada lacagta ay ugu soconayso inaad meeshaan in ay tahay possibility-ga aad lacagta uga seel garaynayso halkaan oo kaleeto inuu trade line ku yaallo ilaa iyo in lacagta lasii push garay karo meeshaan ay ku samaysan karto triple top inay halkaas ku samayn karto meesha trade line uu yaallo 1 2 3 inay halkaas tii karto intaan lasoo seel garayn karo focuskaas iyo meeshaas waa meel dheer balse halkaan lacagta qaabkii uga reversal garaynayso waa inaad aragtay meeshaan oo kale waa inaad capitalkaaga ka ilaashato oo aadan seel garaynin buy garayninna lacag angal soo samaysatay isla markii correction gashay inaad dhahdo halkaasaan ka buy garaynaa waxa aan ka sugayna marka waxay tahay qaab noocan oo kaleeta inay hadda flag ka samaysato meeshaan haddii ay corrective ahaan u tagto markaas risk entry-geena waa qaadanaynaa laakiin haddii ay noqoto in impulsive ahaan ay u tagto markaas waa sugaynaa in meel bal laga soo reversal garay kara inaan helno suuqi waa muhiim capitalkaaga inaa ilaashato balse haddii aan helno retrace candle inaan helno retrace-ka waa taqaanaan oo aad hesho flag qaado markaas flagaas message ayuu ku sii suuqi in jihadii selka ahayd uu suuqa markaas aadayo waa muhiim USD CAD labadaas arrin ayaan ka fiiri doonaa balse haddii ay sidaan oo kaleeto u dhaqanto qaabkii halkaan ugu dhaqanto oo kaleeto corrective ay u samaysato ayada markaas halkaan waa ka joogaynaa ma buy garayn karaa meeshaan maadaama halkaan flag haddii aan ka helo oo ay buy usii soconayso aan ogahay meeshaan meel laga buy garayn karo suuqa maahan ee waa inaad target leedahay meel aad suuqii ku sugtid waa mahadsantiin marka intaas ayaan ka fiirinaynaa meeshaan ayaan arki doonaa qaabkaan ugu soo seel garayno oo ugu soo qaadano halkaan meeshaan waxaad arkaysaa mar waliba oo aan entry qaadanaynay qaabkaan u qaadanaynay USD CAD haddii aad gadaal u laabato inta waad soo arkaysaa meeshaan oo kaleeto waa maxay confirmation-ka aad kusoo seel garaysay section 1 section 2 section 3 ayaad haysa trade line ayaa ku yaalay mini double top in ay ahayd qaab noocaas oo kaleeta halkaan trade line-kaaga waxaa ku yaala trade line-kaaga correction-ka ay ku samaysatay ayaan uga soo seel garaynay halkaanna waa in lagu laabto oo ah meesha aan hadeertan ku sugayno trade-ka haddii kale trade ma jiro USD CAD oo ilaa iyo halkaan ayaan arki doonaa qaabkaan usoo reversal garayno halkaan ayaan kasoo seel garay doonaa impulsive haddii uu dhaco oo aan aragno markaas inaan flag helnana ayadana waa qaadan doonaa jihadii in ay wax isbedeleen ayaan arkaynaa balse labadaas way ayaan ka fiirinaynaa retrace candle inaan helno impulsive ahaan loo jebiyo ama corrective ahaan inaan u tagno USD CAD ayadana halkaas ayaan ugu gudbaynaa waxaan tegaynaa USD JPY ayadana USD ayaan horta ka dhex baxaya hal mar okay USD JPY USD JPY daily USD JPY halkan
lacagta halkan markay mareysay waxaan ka sugaynay qaab noocan oo kaleeta inay imaato at least halkan middle section in uu noo noqdo intaanan impulsive-ka aanan helin ka hor. marka waxa halkan aad ka arkayso for hour button-ka balse nadiif ah, qaab nadiif ah si aan u helno. hadda waxaan arkaynaa in aan ku sugannahay middle section-ka ha is dhammaystiro qaab noocan oo kaleeta haddii uu ku rafto uu trade lane-ka qaab noocan oo kaleeta ku yimaado. haddii aan halkan ka helno markaas retrace candle haddii aan ka helno oo rail lane-keena meesha noo yaallo haddaan tirno kan for example halkan rail lane ayaa noo yaallo inaad fahantaan waa rajaynayaa qaabkan u trade gareeyo oo bal aad aragto waxa meelahan iyo waxa aan ka fiirinayno. halkan waxaan ka fiirinaynaa 1 2 3 haddii aan helno price-ka in uu trade lane-keena tago halkan waa kasoo sell garay doonaa. meeshaan rail lane-keena yaallana haddii aan jebino kadib corrective-ka ayaan qaadanaynaa oo correction-kaas ayaan annaga reduce risk entry qaadanaynaa oo aan kasoo sell garay doonaa. marka labadaas qaab ayaan ka fiirinaynaa. hadda waxa ay ku jirto waa impulsive, meeshan waa middle section, waxaan sugaynana waa impulsive buy ah. marka impulsive-kan buy-ga markuu dhaco meesha aan ku sugaynaa waxay tahay trade lane-keenaas iyo trade lane-keenaas bal in price-ku uu tago. waxaan sugaynaa markaa dartan waa in la push gareeyo oo jihada buy-da loo push gareeyo USD JPY. okay, waxaan tegaynaa USD CHF. USD CHF waxaan ku jirnaa big large correction oo ah impulsive-kan inaan haysano large correction. waxa meeshaan marka ku jiro oo ah pattern within a pattern haddii aan helno for example qaab noocan oo kaleeta in aan u samaysano correction waxaan tegi doonaa ilaa iyo in aan kasoo sell garayno 1 2 3 balse halkan anigu waan ka qaadan doonaa haddii aan flag-aan helo oo jihada buy-da ah ayaan u qaadan doonaa USD CHF. sababtaan u qaadanayana waxay tahay inaan haysto message bull flag within bull flag button ku dul samaysmo button kale. button-ka markuu ku dul samaysmayo button-ka kale kan hadeertaan waa ma dhihi kartid button within a button. waxaan rabaa halkan wax yar inaan jilciyo hadduu ilaa yiraahdo. meeshan waa ascending, halkan waa impulsive, meeshan waa ascending, halkan waa impulsive, meeshan waa impulsive, meeshanna waa correction. correction-kan bull flag-ga marka uu ku dul samaysmo bull flag kale oo hadda for example bull flag-gan qaabkan oo kaleeto markuu impulsive u dhaco meeshan uu ka samaysto correction ayaa waxaa la yiraahdaa button within a button ah bull flag within a bull flag button ku dul samaysmay button kale. laakiin marka uu noqdo impulsive iyo ascending qaabkan oo kaleeta meeshan waa button separation-ka ayaad markaan oo kaleeto isticmaalaysaa oo dhihi maysid ascending within a button within a button oo kaleeto waa dhihi kartaa. marka descending-ka uu ku dul samaysmo ascending oo kale waa laba button oo isku dul samaysmo balse ma noqonayaan wax probability ka dhigayo trade-kii ma noqonayaan. oo reversal button-ka iyo continuation button-ka labadaba waa in aad mid waliba aad fiiriso haddii uu yahay expanding ku dul samaysmay ascending oo kale ama haddii uu noqdo maxaa la yirahdaa descending ku dul samaysma ascending oo kale. taas waxa waaye waa ayadana meesha. marka meeshan button within a button-ka wuxuu ka saacidayaa waxay tahay bull flag within bull flag. marka waxa probability ka dhigaya trade-kan aad buy u qaadan kartaa saas ah. marka correction-ka halkan haddii aad ka hesho halkaana wuxuu noqonayaa marka bull flag iyo large bull flag-gan aad haysatay. marka halkan waa kasoo sell garay doonaa. meeshan haddii aan helno ayadana intaan waa buy garay kartaa oo waa ka faa'iidaysan kartaa USD CHF. meeshan waa kasoo sell garay doonaa qaab noocaas oo kaleeta haddii aan reversal ka helno. haddii aan jebinana oo aan correction helana waxaa ogaanaynaa double top-keena inaan u soconno ayadana waxaan arkaynaa in message suuquna siiyo wax isbedelay. beeshin inaan noqoto aad ku anficaysaa, khasaarahaada wuu yaranayaa, faa'iidadaadana way badanaysaa, consistency aad noqon doontaa, suuqan waxaa noqon doontaa qofka adkaado. balse haddii aad noqoto kan dhow walba inaad la ciyaarto ogow markaas waa khasaari doontaa waadna niyad jabaysaa. waa muhiim in aad leedahay meelo aad suuqa ku sugaysid. waxaan waa garoon aad ku jirtid oo kaleeto oo maxay ahayd boos aad leedahay. marka boosas waa inaad leedahay inaad ismiisaanto waayo waxyaabaha meelaha aad ku khasaari sidoo kale. for example halkan oo kale marka ay joogto USD CHF halkan oo kale marka ay tahay ma aha meel aad ku trade garay karto lacagtii. qaabkan oo kaleeto correction-ka markay ugu jirto
waa inaad ka fogaato capitalkaagana ay ilaashato sidaan oo kale markay tahay qaab noocan oo kale taa markaad aragto waa inaad ka fogaan kartid suuqa oo aad arki kartid meelaha aad markaas aad ka qaadanaysid waayo meesha aad ka qaadanaysid oo ah halkaan oo kale inaad suuqa aad ka buy garayso meeshaan oo kale inaad suuqa ka sell garayso kale maadaama large correction ku sugan yahay ina istiraatiijiyad leedahay waa muhiim laakiin halkaan oo kale sell iyo buy aan u galaya suuqa dadaado markaas waxa waaye qof aanan capitalkiisa ilaalinayna tahay suuqa la ciyaarayo markaas candle taana dhibay keenaysaa marka JBP da ayaan fiiri doonaa ayadana JBP USD ayadana waxaas leeyahay waxaa fursad fiican ayaa ka muuqato toddobaadkan hadduu ilaa yaraado sababta fursadan dhalinaysana waxay tahay halkan waxaan haysanaa ascending waxay ku socota lacagtu waa inay samaysato mini double bottom oo kale haddii halkan aan ka helno waxay noqonaysaa in aan haysano 1 2 3 mini double bottom iyo ascending taa ayaa waxay ka dhigaysaa in uu helo suuqii wax reversal gareeyo oo jihadii buyda ahayd ku dhaliyo marka qaabkan oo kaleeto waa meel aad ku aamini karto risk entry-gaada inaad halkan oo kaleeto ka qaadato meeshaan haddii uu yimaado price-ka risk entry-ga halkan waa ka qaadan doonaa balse ogow waa in uu xirmo candle-ka risk entry-ga qaata markaa idin leeyahay fadlan 1 hour-ka markaa joogtid oo kaleeto candle-ka ha kuu xirmo oo candle-kii oo socdo oo aanan xirmin dhexda ha ka gelin waxaan ka wadaa candle-ka waxaa macquul ah in uu halkan jabiyo kadibna uu week dheer kugu sameeyo marka weekgaas dheer uu kugu sameynayo waxa waa inaad sugto waa muhiim ama candle-ki in uu jabiyo kadibna halkan in uu falaag ka dhaco marka waxaan oo dhan waxaa kaa badbaadinayo in aad sugto suuqa oo ah candle-ka in uu xirmo muhiimadda candle-ka inuu xirmo ay leedahayna waa midaas halkan marka haddii aanan la imaaninna trade lane-kaada ayaa meeshan reversal uu ka dhacaya trade lane-kaada qaabka loogu reversal garaynayana ogow meeshan in uu kugu sameeyo impulsive halkan waa steep flag haddii aad qaabkan oo kaleeta aragto meeshan markaas waxay noqonaysaa in aan haysano impulsive steep flag impulsive qaab noocan oo kaleeta oo halkan haddii aanan la tegin possibility-ga waa halkan probability-gana waa halkan marka meeshan haddii aanan la tegin adigu iyaysan kugu noqonin meeshan hadduu suuq imaan waayo mana buy garaynayo mana sell garaynayo waa inaysan kugu noqonin halkan waxa probability ka dhigaya waxay tahay descending within mini double bottom in aan haysano structure-keena 1 2 3 ga in la dhammaystiray qaab noocaas oo kaleeta ayaan u buy garay doonaa balse halkan ha ignore garaynin impulsive middle steep flag in halkan impulsive-ka kaleeta uu ka imaan karo at least ilaa iyo halkan haddii aan la socono xataa anaga profit ayaan haysanaa haddii ay noqoto meeshaas inaan ka helno 490 bibo okay marka JBP USD halkaas ayadana qaab noocaas oo kaleeta ayaan u fiirinaynaa euro JBP ayaan ayadana bal isla tegaynaa iyo qaabkii markaas aan structure ahaan euro JBP waxay ku sugan tahay waa middle section haddeertaan rayline-kan meesha u yaalo oo double top-keena ah waa tirayna bal si aan halkan meeshan waxaan dhiganaynaa rayline oo qaab noocan oo kaleeta waa qaabka aan mar waliba u fiirino meeshan waxaan haysanaa 1 2 3 halkaas in aan ku sugno baatanka in uu is dhamaystiro meeshan waxaan haysanaa bull flag halkan waxaan haysanaa impulsive meeshan waa middle section kan waxa waaye cashirkii halkee ayaan ku suganahay aniga muhiimad ay qolka badan ma qaaday waa active garay doonaa insha Allah meeshan middle section kan waxa waaye waa in uu dhaco buy-gan marka uu dhacayo middle section ka waxaad ogtahay mar waliba in uu ka dambeeyo jiha buy ah oo impulsive buy ah in uu ka dambeeyo marka qaab noocan oo kaleeta haddii aan samayno lacagtii in ay halkan imaato in aan dhamaystirno 1 2 3 meeshan in aan la haysano mini double bottom middle section waxa aan haysano oo aan sugayno waa impulsive at least in aan tagno rail lane-keena amaba in aan tagno maxaa la yidhahdaa trade lane-keena qaabka aan u tagayno rail lane-keena oo ah corrective ahaan haddii aan u tagno meeshan ayada waxa waaye waa ka qaadanaynaa risk entry-geena impulsive haddii aan aragno in loo jabiyo kadibna waxaan sugi doonaa falaagan ayaan sugi doonaa oo halkan ayaa waxaan ka qaadan doonaa trade-keena halkaas ayaan ka qaadan doonaa haddii ay noqoto impulsive-kan markii uu jabiyo retrace candle in uu dhici waayo maxaa dhacayo meeshan ayaan corrective ka helaynaa markaas oo waxaan helaynaa trade lane-keena korkiisa in aan markaas risk entry ka soo qaadano oo aan impulsive-kan qabano impulsive-kaas markaas waxa waaye trade-kaas haddii aan helno entry-ge ku habboon oo aan ka raadinayno oo aan beeshin ku unahay haddii aan helno
at least in aan la soconno ilaa iyo trade lane-keena marka ilaa iyo halkan way ka badan tahay waana meesha aad lacagta ka samaynaysa balse aad ku degdegin oo wax sug waxaan aan ku sheegayo oo ah intaan oo qaab haddii aad sugto intrigana way maysid kuna khasaari maysid balse dhexda haddii aad ka gasho suuqa ayaad maxay ahayd dhibaato kugu noqonayso aad arkaysaa oo meelaha ay ka qaldan yihiin oo kale inaad aragto marka sug impulsive-kan halkan ma ka qaadan karaa maxaa la yiraahdaa risk intriga oo haddii aan ogahayba in suuqu aadayo buy impulsive-kan maxaan u deynayaa maan qaato tan ayaa waxay noqonaysaa marka in psychology ahaan aadan u diyaarsanayn hab fikirka aad u fikiraysid ayaa liito markaad meeshaan oo kaleeto suuqa aad ka buy garaynayso sababteeda waxay tahay meeshaan ma aha meel annaga maxay ahayd aan suuq buy ku soconayo ayaa buy laga raadiyaa suuq sell ku socdo aad ogtahay inuu reversal samaynayo lagama raadiyo buy lagama raadiyo sababtoo meeshaan haddii uu inta baxo kugu samaysto M style qaab noocan oo kaleeta uu kugu jabiyo kadibna corrective uu halkan ku samaysto annaga maxaa sugaynaa meeshaan in aan corrective ka qaadano oo aan ognahay ayadoon halkan area-dan la tegin in aan kansanlo kadibna falaageena in aan qaadano waa istiraatiijiyadana iyo qaabkan u trade garaynayno marka meeshaan meel aad ka buy garay karta ma aha waan ognahay move buy inuu imaanayo oo ilaa halkan waa focuska meeshaan saarayno balse waxa aan qabanayna ayaa ah impulsive-ka marka meeshaan 40 bib iyo 50 bib ay ku jirto maaha inaad capitalkaaga u lumiso falaagan haddii aad aragtana meeshaan falaagan ayaan ka qaadan doonaa sell trade doonaa mahadsantiin marka waxaan tegi doonaa JBB aan ku noqonnaa iyadana JBY okay daily Euro USD for her عيدوا سنيور مود استثار خير الله كسي meeshaan waxaan arkaynaa haddii kale waxaan ku soo laaban doonaa sidii waagii oo kale qofna iskama qaadi doono qofna maxay ahayd ma hadli doono marka waa muhiim aniga adinkan idin ixtiraamaya maahane meel walba waa loo qori doonaa haddii idin noqon lahayd marka meeshaan trade lane-kan inaan haysano ascending ahaan loo tagay impulsive-ka waa halka uu ka yimid waxa aan sugayna haddeertan waxay tahay in mar labaad lagu soo laabto meeshaan inuu ka sameeyo mini double bottom inta aanan buy garaynin ka hor meeshaan risk intrigayga ayaan ka qaadan doonaa oo halka aan ku sugayo ayadoo weliba risk intrigu shuruudaha ay leeyihiin mar weliba inaan sharaxo ma aha qaabka loo tegay ayaad fiirinaysaa haddii halkan aad ka aragto qaab noocan oo kaleeta in price-ku uu baxo meeshaan in aad impulsive ka hayso kadibna correction halkan uu yimaado ayadana falaaga correction-ka ayaan halkaas ka qaadan doonaa meeshaan ma aha meel aan ka qaadanayno risk intriga ma aha oo impulsive meeshaan waxaan arkaynaa markaas steep flag inuu yahay ha dhamaysto steep correction-kiisa ha dhamaysto oo correction-kan ha isdhamaystiro middle section-ka kadibna impulsive-kan sug correction-kaasna qaado oo reduce risk intriga ka qaado waxa marka aad qabanayso ma aha maxay ahayd waxa aad raadinayso ma aha halkan waxa aad raadinayso inay fahanto ayaan rajaynaa waxa aad raadinayso faa'iidada halkan ma aha walaal faa'iidada waxa aad ka samaynayso waa impulsive-kan marka waa ku soo laabanaya waana mood garay doonaa zoom-ka waa maasan